marka federaalka la wiiqo maxaa badbaadinaya Soomaaliya Puntland oo taagan isgoys taariikhi ah waxa qormadan soo diyaariyay Yuusuf Saciid Xirsi taariikhda July 9 sanadka 2026 waxaana uu ku bilaabay sidan federaalka Soomaaliya ma aha deeq uu bixiyo hogaamiye mana aha nidaam ku xiran rabitaanka hal qof waa heshiis siyaasadeed oo ka dhashay duruuf adag laguna doonayo in lagu soo afjaro colaad kalsooni darro waliba awood urursi muddo dheer dalka ragaadiyay haddaba haddii heshiiskaasi si tartiiba loo wiiqo waxa waajib ah in la isweydiiyo Soomaaliya xagee loo wada sida uu qabo Yuusuf Saciid Xirsi calaamadaha maanta muuqda ma tilmaamayaan federaal si xoogaysanaya waxaana u eegyihiin hanaan ay dowladda dhexe ku doonayso inay dib ugu ururiso awoodii dastuurka qaybiyay haddii jidkaasi lagu sii socdo khilaafku ma ahaan doono mid u dhexeeya Muqdisho iyo waliba hal dowlad goboleed balse waxa uu noqon doonaa muran ku saabsan jiritaanka federaalka laftiisa koonfur galbeed waxay noqotay tusaalihii ugu horeeyay ee doodaasi dad badan waxay arkaan wixii halkaasi ka dhacay inay muujiyaan sida ay u fududaan karto in awoodda siyaasadeed lagu leexiyo jihada dowladda dhexe haddii aragtidaasi ay sii xoogaysato su'aashu waxay noqonaysaa iyaasi xiga indhaha siyaasadda maanta waxay ku sii jeedaan Puntland Yuusuf Saciid Xirsi waxa uu yiri Puntland ma difaacayso kaliya maamul goboleedkeeda balse waxay sheeganaysaa inay difaacayso mabda'a federaalka taasina waa sababta khilaaf kasta oo kala dhaxeeya dowladda dhexe uu noqdo mid ka weyn muran siyaasadeed oo caadi ah dhanka kale xiriirka dhow ee u dhexeeya dowladda federaalka iyo waliba Turkiga waxa uu noqday mowduuc siyaasiyiin iyo waliba falanqeeyaal badan ay ka doodaan Turkiga waxa uu Soomaaliya ka taageeraa dhinacyo muhiim ah sida amniga tababarka ciidamada iyo waliba mashaariicda horumarinta hase yeeshee marka xiriirkaasi uu ku soo beegmo jawi siyaasadeed oo kacsan waxa soo baxay walaac iyo waliba su'aalo ku saabsan sida loo ilaalin karo dheelitirka u dhexeeya iskaashiga caalamiga iyo waliba mid madax bannaan ee go'aanada gudaha ah waxaa jira siduu yiri Yuusuf Saciid Xirsi aragtiyo siyaasadeed oo sheegaya in Puntland laga yaabo inay wajahdo dadaallo lagu kala qaybinayo siyaasadeeda ama lagu weeqayo awoodeeda waxaa sidoo kale jira dood ku saabsan muhiimadda istiraatiijiga ee xeebaha Puntland iyo waliba doorka ay yeelan karaan danaha gobolka arrimahani waxay wali ay yihiin kuwa lagu murusan yahay mana jiraan cadeymo madax bannaan oo si buuxda u xaqiijinaya sheegashooyinkaasi balse qayb ka mid ah yihiin doodo siyaasadeed oo maanta taagan haddii federaalka lagu bedelo awood urursi khasaaruhu ma ahaan doono mid Puntland ku kooban waxaana dhaawacmaya waa kalsoonidii lagu dhisay dowladnimada cusub ee Soomaaliya sida Yuusuf uu yiri Yuusuf Saciid Xirsi waxa uu yiri Puntland maanta waxay haysataa laba wado mid waa inay ka falceliso cadaadis kasta oo siyaasadeed si degdeg ah mid kalena waa in ay noqoto codka ugu xoogan ee ku baaqaya in khilaaf kasta lagu xaliyo dastuur wadahadal iyo heshiis qaran taariikhda inta badan waxay xasuusataa kuwa ilaaliya mabda'a maaha kuwa ku guuleysta muran maalmeed Soomaaliya waxay u baahan tahay dowladda dhexe oo xoogan laakiin waxay sidoo kale u baahan tahay dowlad goboleedyo awood leh labadaasi fikradood isma diidana waana lafdhabarka federaalka sida uu qabo Yuusuf Saciid Xirsi marka awoodda ay ku ururto hal xarun kalsoonidu waa ay yaraata marka kalsoonidu ay yaraatana midnimadu waa ay daciiftaa marka midnimadu ay daciiftana dowladnimadu waxay gashaa halis su'aasha dhabta ah maaha cidda guuleysanaysa khilaafka siyaasadeed balse waa sida loo ilaalin karo dowladnimo ay dhammaan shacabka Soomaaliyeed ee ku wada kalsoon yihiin haddii la xoojiyo wadahadalka la dhowro dastuurka lana ilaaliyo nidaamka federaalka ama wax ka beddelkiisa lagu sameeyo is-afgarad qaran waxaa jiri kara fursad lagu dhiso Soomaaliya xasiloon oo mideysan Yuusuf Saciid Xirsi ayaa na soo gaarsiiyay qormadani